السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا wanaagsan asxaabta bahda barnaamijka Ismail ba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaalka maanta oo Jimco ah waxaan kaga hadli doonaa alla idinkii fursadaha suuqa ka dhaca ama fursadaha qof walba maanta trade gareeyo ama trade kaasi ha ugu dhaco SL ama TB ha u aadaba laba fursadood ma dhaafsiisana. labadaas fursadood markii nidaamka bahda barnaamijka ay ku trade gareeyaan marka ka hadlayno wayaan labadaas fursadood waa laba fursadood la kala yiraahdo continuation setup iyo reversal setup. inaad continuation aad fursad ka heshid ama inaad reversal aad setup ka heshid waa labadaas oo kaliya. labadaas wax ka dhaxeeyo oo maanta nidaamka bahda barnaamijka ay isticmaalaan hadda aragtaan oo trade markay qaadanayaan labadaas fursad mid kamid ah ayay ka helaan. haddaba continuation oo maxaa tahay reversal oo maxaa tahay marka labadaasi aan qada dhigi doonaa la idinkii sida kala baxaan. haddaan ku hormarno waxa la yiraahdo continuation ka haddaan ku hormarno continuation qeexitaankiisu waa soo koobeena waa markii suuqay hore u socday oo jihadiisa uu sii wato. tusaale ahaan suuq ayaa wuxuu ku socdaa trend ama higher low ku socdaa. suuqaasi aad fursad ka raadinaysaa kadib fursadii waxaa la jirsanaysaa dhaqaaqii socday oo jihadii kama soo horjeesanaysa. kaasi waxa la yiraahdaa waa continuation oo mar walba suuqaasi aad la jirsatid dhanka marka loo fiirsano lower high lower low oo dhankii hadduu sell u socdana sellkii ayaa la jirsanaysaa oo down trend u yahay. marka waxaan isla fiirin doonaa shax yar oo kooban oo continuation aan kaga dhamaanayno. muuqaalka ma rabna inaan muuqaal dheer aan ka dhigno muuqaal dadka fahmi karaan oo qof walba bilow ah ama qof walba dhaxdhaxaad maraayo uu fahmi karo ayaan ka dhiganaa la idinkii. marka meeshan waxaan ku qornay ama aan ku soo diyaarinay shax aan ugu talagalnay in lagu fahmo. tusaale meeshan waxaad ka arkaysaan shaxdani halkan idin kaga muuqato suuqa wuxuu ku socdaa uptrend higher low kadib marka suuqii aad arkaysaan jihadii kama soo horjeesanaysid oo waxaad raadinaysaa marka bullbacktan ay timaado inaad liquidity short ah meelaha ka raastid. haddii aad New York aad trade gareynaysid meelaha liquidity lagu qaado haddii aad London trade gareynaysid liquidity yar oo meelaha aad raastid kadibna meel fiican oo area oo la rabo suuqa in laga buy gareeyo haddii buy karabti lagu tago kadibna sidaas aad ku buy gareysid oo jihadii kama soo horjeesanaysid. waxaa la yiraahdaa nidaamkaasi ama fursadaasi sida hore soo sheegnayba continuation. dhan kaleeto waa la mid lower high lower low suuqa socdo aad waxa rabtaa inaad fursad sell aad ka raadsid. kadib intaad fursad sell aad raadin waxaad sameynaysaa inaad liquidity aad meelahan fiirsid. suuqa mar walba liquidity weyn ha qaado ama liquidity yar ha qaado suuqa mar walba liquidity ayuu beegsadaa. haddii liquidity yar meeshan lagu qaado kadib aad ka heshid wixii nidaamkaaga kaleeto fursadii sellka ama fursadii down trendka ayaa la sii jirsanaysaa. sidaasi marka waxaad ku arki kartaa in continuationku yahay trade socda ama trend socda ama gaari socda aadan ka harin oo aadan ka hor imaan. inta badan waad arki doontaa waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin iyo meelaha ay ku khatar badan yihiin labadani fursadood. waxyaalaha ay ku kala fiican yihiin tusaale ahaan in continuationka uu halis badan yahay ama reversalku halis badan yahay waad arki doontaan la idinkii. marka aan u laabano fursadii kaleeto oo hadda waxaan halkan uga baxnay waxa la yiraahdo continuation setup. waxaan arki doonaa waxa la yiraahdo reversal setup. reversal setup muxuu yahay asiga muxuu kaga duwan yahay continuation. continuation waxaa soo dhaanay waa markii suuqii hore u socday oo u sii wado jihadiisii uu sii socday. hadda waa uu ka duwan yahay waa marka suuqii hore u socday oo jihadiisu u bedelo jiha kale. haddaba asla aragno waxyaalihii halkan aan ku qeexnay markii aan joogno reversal. reversalku mar walba haddaan aragno continuation waa uu ka halis badan yahay. haddaan isla fiirino suuqa ayaa wuxuu ku socdaa uptrend liquidity meeshan ayuu ka samaystay. marka liquidity-yashan waxay noqon karaan liquidity adag ama higher time frame liquidity daily ama weekly ama 4 hour liquidity. inta badan reversalku waxa uu xooga saaraa higher time frame-yada markuu liquidity dhacaan jihadii markaas ayay inta badan isbedeshaa. sidaa darteed waxaad aragtaan trade ku socday uptrend markii liquidity aan la qaadana kadib suuqii waxaa ka dhacay in uu soo kala wareego kadib meel bounty ayuu tagay kadibna shiftigii
gaabkii lagu laabto ama waxyaalihii kale aad ka fiirsan jirtay kadibna suuqii sidaasi uu ku soo daato. waayo jihadii suuqa u socday ayaa soo kala wareegtay, ama waxaan dhihi karnaa jihadii suuqa u socday waxaad ka raadinaysaa fursad kaleeto ka duwan oo waad ka soo horjeetaa trendiga. waad arki doonaa marka waxyaalaha ay kula duwan yihiin marka labadaani. sidoo kale iyadoo sell ah, tani waa jihadii oo buy u socotay oo aad ka hor imaanaysid adigoo buy aan ka raadinaynin oo fursad sell aad ka raadinaysid. tanna waa jihadii down trendka u socotay oo sell ka ahayd oo adigoo aad sell aan ka raadinaynin fursad oo buy ka raadinaysid markii meelihii aad rabtay lagu tago. okay, saad arkaysaa marka lower high lower markii la samaysto kadibna liquidity lagu qaado, then meel bounty lagu tago, ayaad waxaad raadinaysaa in waxyaalihii kaleeto suuqa ku galaysa inaad ka raastid. MS ku ahaado, gap ha ahaado, ob ha ahaado, wixii adiga aad ku qaadan jirtay intrigaaga. oo yaan ku dheeraanin muuqaalka aan soo koobno. waxaan fiirinaynaa marka waxyaalaha ay labadani fursad ay ku halis badiyiin. marka labadani fursad waa ay kala khatar badiyiin. marka labadan fursad marka midkee aad u khatar badan, midkeena khatartiisu ay yar tahay. waxaan ku hormaraynaa continuation setup. waa mid khatartiisu ay yar tahay sababtoo ah waxaad la socotaa jihadii suuqii hore u waday oo order flow-ga directionkiisu aad buu cad yahay, oo waxaad arkaysaa suuqay inaadan ka hor imaan. badanaa fursadahani ayaa cajiib ah. dadyowga inta badan suuqani ama nidaamkani ku trade gareeyana fursadaha inta badan xoogga saaran waa fursadahani oo continuation-ka ah. waa midka ay u fiican tahay in qof walbo ama bilow ah ama dhaxaad ah ama dhamaystir ah oo xoogga saaro. haddaba waa mid khatartiisu yar tahay markii continuation-ka loo eego reversalka. halka reversal setup-ka ay tahay khatartiisu mid aad iyo aad u adag ama khatartiisu ay badan tahay sababtoo ah waxaad isku dayaysaa inaad ka hortagtid ama aad ka hortimaadid trendiga. waayo market structure-kii socday oo hore u socday weli waa uu socon karaa, liquidity kale ayaa la beegsan karaa ama dib ayaa loo qaadi karaa. sida awgeed reversalka ayaa ka halis badan markii loo eego continuation trade-ka. haddaba suuqani forex ayuu u dhaxeeyaa markii fursadsan. haddaad aragtid saaxiibkaaga oo fursad qaatay ama trade ku jira, labadan fursad waxa ahayn ma qaadan. labadan fursad ayuu xoogga saaray, ama continuation ayuu ku jiraa ama reversal ayuu ku jiraa. muuqaalkeeni ma rabno inuu sii fogaado. muuqaalka maanta waxaan ugu talagalnay in asxaabta ay ku jimcaystaan. wiigani uu yahay wiig iska gabagaba ah, fursadihiina ay gaabis noqdeen. waxyaalahani waxa uu asaasa dowladda Mareykanka oo shutdown ah, oo suuqii dollarka ayaa inta badan zaxmadiisu ay weli taagan tahay. leedinkii waxaan rajaynaynaa in muuqaalkani uu ku noqon doono muuqaal adiga wax badan ka bedela. waayo haddaadan la socon wixii adiga aad qaadanaysid, kaliya aad fiirsatid trade-kani market structure ma dhacay, MS ma dhacay, meeshan gap ma imaaday, kaliya aad fiirsanaysid waa taamid ku gaara. laakiin trade-ka aad qaadanaysid noocu yahay inaad ogtahay waa muhiim. haddaba labadani marka midkani ayaa khatartiisu yar tahay oo mar walba xoog la saara. waayo trendiga kama soo horjeesanaysid, mana ka soo horjeesan kartid. laakiin trendiga hadda marka ka soo horjeesta aad tiraadid reversalkan ayaa xoog saara, adi marar dhaxa indhahaaga gudgudud waa ka baxaysa suuqa. reversalku inta badan markii la qaado liquidity waaweyn oo suuqa meelo waaweyn oo beegsado ayaa la egtaa. laakiin inta badan waxa xoog la saaraa oo suuqa jihadiisa lala jirsada waxay tahay waa markii continuation setup-kaaga uu yahay oo mar walba aad focus ka saarayso. waxaan rajaynayaa in muuqaalkani uu ku noqon doono muuqaal leedinkiis wax badan ka fahmi doontaan. insha Allah sidaan oo kale soo koobi doonaa. waayo dadkeena Soomaaliyeed inta badan waxa fog ama waxa dheer inta badan ma jeclo. waxyaalaha inta badan laba ku dar afar waa in la dhaxliyaa ay doonayaan. marka sida awgeed qofku waxa uu fahmi karo macna leh insha Allah aan u soo koobin doonaa, macnihiisuna uu fahmi karo. baada bilba fikis hala yaabina suuqa inuu maalmahan iska yara daalan yahay. waayo dollarka hadduusan jaha yeelanin ama dollarka hadduusan af yeelanin, nabarku markuu af yeeshto ayuu dawadiisa la ogaadaa, ma garatay. marka haddii aad dollar ka trade gareysid, dollarka af ha yeesho. aad baad u mahadsantihiin baada bilba fikis malba joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.